madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiska qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa isla markaana uu hogaaminayo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Ambassador James Iswem kulanka madaxweynaha uu la qaatay wafdigani uu hogaaminayo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa ahaa mid albaabadu u xidhnaayeen isla markaana warbaahinta dibadda ka ahayd kulankan ayaa waxa diiradda lagu saaray arrimo door ah oo salka ku haya xiriirka wada shaqeyneed ee Soomaaliland iyo qaramada midoobay iyo dareenka Soomaaliland ay ka qabto kaalinta qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba kaga jiraan horumarka Soomaaliland markii kulankaasi uu soo dhamaaday waxa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton iyo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu horeynba wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka iyo ujeedada iyo qodobada la isla qaatay waxa kamid ah waxay Soomaaliland u gudbisay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu ka gaarsiiyo fariimo ka gaarsiiyo xogayaha guud kuwaas oo ay kamid yihiin in muddo imika 30 sanadood ah Soomaaliland ay hanatay oo ka shaqeysay madaxbannaanideeda qadiyadeeda ay mataqaanaa gudatay ay ka taliso danaheeda dhamaantooda iyadu gacanta ku hayso oo ka taliso haday tahay dhulkeeda iyo maamulka dalkeeda haday tahay cirkeeda haday tahay badeeda mid walbana ay ku guulsatay inay ka shaqeyso xasiloonadiisa iyo nabadiisa iyo noloshiisa in jaarka iyaga iyo waliba Soomaaliya waxa qaybteeda aanu jaarka nahay Puntland aanu ku dadaalnay oo si wanaagsan meel wanaagsan isla gaadhnay oo aanu imika si nabadgelyo ah diyaar ugu nahay in wixii jiraba aan ku dhamayno oo ugu wada noolaano dhinaca kale wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Ambassador James Iswem oo warbaahinta dhinaciisa la hadlay waxa uu cadeeyay inay qaramada midoobay ka go'an tahay inay sii wadaan hawlaha shaqo iyo mashaariic ay ka wadaan gudaha Soomaaliland qaramada midoobay waxay soo dhaweynaysaa wada hadallo midhadhal ah oo dhexmara Hargeysa iyo Muqdisho oo aan aaminsanahay inay kor u qaadi doonto amniga dhaqaalaha iyo iskaashiga bulshada sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa go'aankii dhexdhexaadinta ahaa ee Soomaaliland ka gaadhay khilaafkii gudaha ee ku saleysnaa doorashooyinka waxaanu ka dhul sugaynaa in doorashada baarlamaanka la qabto bartamaha sanadka 2020 waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa Soomaaliland in la ilaaliyo xurriyadda hadalka asxaabta qarankana aan laga hor istaagin inay gutaan waajibaadkooda kulanka ay maanta wada qaateen madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigan ballaaran ee horkacayo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxa madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo horumarinta maaliyadda Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa